madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole kulanka uu la qaatay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee ku hawlan dejinta dastuurka dalka Soomaaliya ayaa ka dhacay hotel Kambeski ee caasimadda Djibouti. Madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo la hadlay xubnaha guddiga ayaa waxa uu kula taliyay inay u dhabar adeegaan hawsha adag ee ay ku guda jiraan isla markaana baaxadda ay leedahay ay weyn tahay. Sidoo kalena waxa uu kula tagnay Cabdiraxmaan Faroole inay ku dhisaan ama uu sal u noqdo dejinta dastuurku cadaalad iyo sinaan ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa si kala dambeynta iyo deganaanshuhu dalkii ugu soo noqdo. Cabdiraxmaan Faroole waxa uu yiri waxa weeye wax la isku raaci karo cadaalad ku dhisan nin walibana hadda ogaada hadii xataa dawladda federaalka oo rajo ka qabo inuu madax ka noqdo asalku waxa weeye meesha deegaamada inay xuquuq yeeshaan waxyaalo badan baa imaan doona caasimad wala difaan garan doona dastuurkeena ku sheegtaan waa yaa lahaanay caasimad waxay noqonaysaa reer leeyahay oo reer walba leh dawladda ka dhisteeno meel keligooda aleeyo magaciisa mise waxay noqonaysaa meel caasimadaha kale oo adduunka oo dadka degan ay u siman yihiin codka iyo madaxnimada ay u siman yihiin mas'uuliyad baa in saaran oo aan saarayn annaga nama saara TFG-ga nama saara Soomaaliland nama saara idinka in saaran taariikhdu wax waraasahayna ku sheegto 13 laagada ha noqon oo magac raacay oo rag baa la shaqeeyay oo dhintay laakiin magaciisa iyagu raacay madaxna midkoodna ma noqon waa ogtihiin 13 midna madax ma noqon dawladii Soomaaliya markii sameeyay waliba iyagu arbaga muddo arki jiray oo xamar iska jooga waxba la siin baan arki jiray laakiin magac baa raacay taariikhda ku yaalay meel baa ku qoran marka anigu intaasaan in leeyahay waxa weeye wax Soomaali isu keeni kara ayaa leeyahay ka doonaya ay isugu imaan karto waxayna ka soo horeeyaan waxa ay sheegay waxa leeyahay ka rabaan mustaqbalkana waa ka intaas baa ina ku ekeynaya ilaahayna hawsha ay ku guuleeyo waana ina ku mahadinaya inay guddiga madaxa bannaan ayaa geestooda iyaguna waxay madaxweynaha sharaxaad iyo micno dheeraad ka siiyeen hawlaha ay ku guda jiraan halka ay haadan u marayaan. bishii Maarso ayaanu bilownay in guddiga maxaan ku raaw isku yimaado waxa waqtiga aad iyo aad lagu koobno waxa la yiraahdaa bisha June 7keeda ay ugu dambayso qabiyo qoraalkii la tashiga dadweynaha sababta qabiyo qoraalka la tashiga dadweynaha waxa ku yar aasan la tashiga hoggaanka dalka la tashiga hoggaanka dalka hay'adaha maxaan ku raadaan ka jira maxaan ku raad ururada rayidka hoggaanka dalku waxa weeyaan isaga inta xamar fadhida mudane madaxweynaha kamid ah iyo maxaan ku raad state-ka Puntland oo dhan marka qabiyo qoraalkaasi waa inaan soo saaro waan idin soo madhigno kooda luuli hadii alla ilaa la tashiga hoggaanka iyo dadweynaha dalkaba kadib waxaanu gali wacyigelin aad iyo aad u balaaran oo dadweynaha meel kasta aan ugu tagi karno qalab kasta oo la adeegsan karo TV-yada iyo raadiyoyada iyo saxaafadda iyo xataa maxaan ku raadinaa inaan awr u rarano uga joogsan mayno meel kasta oo aan cagdii karnana waanu tagi waxaan aadanu agtaanu idinku badin reer Puntland. madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole ayaa sidoo kale waxa uu saxaafadda uga warbixiyay booqashada gaaban ee uu ku jooga dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ku salaysan tahay waxa weeye anaga hadda waxaan ka nimi dhinacaas Nairobi Kenya awalna ka hor Ethiopia magaalada Addis Ababa aanu iyadana muddo joognay oo xarunta EU-dana African Union ah dawladda Ethiopia-na aanu xiriir badan leenahay safarkayagaasu sida Soomaaliya maanta xalkeed ku sugan yahay ka warhaysaan waxa weeye nin buka boqol u tali wax badan baa Soomaaliya kaga xiran dawladaha adduunka gaar ahaan meelaha xarumaha caalamiga ah oo Soomaaliya inta danaysaay ama ay joogan wakiiladoodii saas buu ahaa Djibouti hadda si aan rasmi ahayn baanu ku joognaayo waxaanu ka aadaynaa dalkii gudahan ka aadaynaa laakiin iska aragnay madaxda qaarkeed way saragnaysan wali madaxweynaha aan wada kulmin wasiir way saragnay Xaamid iyo agaasimaha guud oo madaxtooyada inta way saragnay xiraqaad gaar ah oo walaaltinimo sokeeya baa Djibouti naga dhaxaya si gaar ah Soomaalinimada iyo ku salaysan iyo derisnimada intaba iyo abaal hore oo ilaa intii Soomaaliya ay burburtay ay Djibouti u ahayd hoggaan
inay mar kasta Soomaaliya bal meeshii laga qaban karo ay ka qabato. madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo booqashadan uu ku soo maray dalalka geeska ay ku wehelinayeen wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin wasiirka deegaanka